أسباب حكمك محكمة بسم الله الرحمن الرحيم محكمة markay aragtay qoraalka rafcaanka ay soo qaateen maxkamadda rafcaanayaasha markay maxkamaddu aragtay jawaab celinta ay ka bixisay xafiiska xeeraaninta rafcaanayaasha markay aragtay maxkamadda xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug sanadiisii tahay MDK-ga gacma 963 2019 oo ku taariikhaysan 12 bishii shanaad 2019 markay daweysatay dowr afkeeda rafcaanayaasha iyo jawaab afkeeda uu ka bixiyay xeeraalinta markay maxkamaddu aragtay dhammaan qoraalada ku jira galdacwadeedka markay maxkamaddu akhrisay waraaqaha warqadda dhaawac muujinta oo laga qoray marxuumadda oo ku taariikhaysan 25-kii bishii labaad 2019 maxkamaddu markay akhrisay buugga laga diyaariyey sandaladii DNA-da oo dibanada marxuumad caasho ilyaas aadan iyo rafcaanayaashaba maxkamaddu markay aragtay caddaynta dheeraadka oo u soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta maxkamadda ee xuseeye rafcaanle cabdifataax cabdiraxmaan warsame sida dhaawacyo ka muuqda jirka gacanta nabar ku yaal xagtimo laabta ah iyo muruxyo kaga yaal dowlyaha iyo jilbaha maxkamaddu markay aragtay caddaymaha dheeraadka oo uu soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta ee xuseeye rafcaanle cabdishakuur maxamed dige sida lacagta uu ururiyey iyo qabriga uu diyaariyey iyo in uu ku yidhi marxuumadda hooyadeed way samirsan tahay halla aasho badana halka uu soo bandhigay xafiiska xeeraaliyaha caddayn DNA keliya oo xusaysa rafcaanle cabdisalaam cabdiraxmaan warsame markay u weydiisay maxkamaddu mid dhammaan rafcaanayaasha ayna ku jawaabeen inaysan gelin dambiga lagu soo oogo markay aragtay buugga warbixinta DNA-da sida sandalada ay u kala leeyihiin rafcaanayaasha CCW 12A oo ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo CCW 12B oo ah rafcaanle cabdishakuur rafcaanle cabdisalaam cabdiraxmaan warsame ayna iskaga mid noqdeen sandaladii la baaray 100% ee korrupshoonka way sababtana ay ku kala saari waayeen inay isku caado iyo isku hooyo yihiin si sahlanna loo kala saari karin halka CMD 12C uu isagu gooni u qorayo halkaan ku celiyo markay aragtay buugga warbixinta DNA-da sida sandalada ay u kala leeyihiin rafcaanayaasha CCW 12A oo ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo CCW 12B oo ah cabdisalaam cabdiraxmaan warsame ayna iskaga mid noqdeen sandaladii la baaray 100% korrupshoonka way sababtuna ay ku sheegeen in ay isku caado iyo isku hooyo yihiin si sahlanna loo kala saari karin halka CMD 12C uu DNA-giisu si gooniya u qoray markay u caddaatay rafcaanle cabdifataax cabdiraxmaan warsame sida sandalka in sandaladii laga qaaday oo DNA-da 100% waafaqsan yahay kuwii laga qaaday marxuumad caasho ilyaas aadan iyo sandaladii kaleba sidoo kale waxaa u caddaatay maxkamadda in sawirada la soo bandhigay oo uu inkiray dhammaantood uu leeyahay cabdifataax cabdiraxmaan warsame markay u caddaatay maxkamadda in cabdishakuur maxamed dige
in sandaladii laga qaaday DNA-da boqolkiiba boqol waafaqay kuwii laga qaaday marxuumad caasho ilyaas aadan iyo sandaladii kaleba. sidoo kale waxay caddaatay maxkamadda in cabdishakuur maxamed dugo uu lacag ku ururiyey gabdho si loogu aaso marxuumadda qabrina diyaariyey. markay u caddaatay maxkamadda rifcaanle cabdisalaan cabdiraxmaan warsame in sandalada laga qaaday DNA-giisa boqolkiiba boqol waafaqsan yihiin kuwii laga qaaday marxuumadda caasho ilyaas aadan iyo sandaladii kaleba, iyo in uu guriga wax ka deganaa, balse ay sheegeen khubarada baarista sandalada DNA-da in aan si sahlo loo kala saari karin isaga iyo walaalkii cabdifataax ayna isaga mid yihiin sandalada la qaaday boqolkiiba boqol. markay daalacatay kutubta shareecadda islaamka iyo kutubta shareecadda islaamka iyo kuwa waafaqsan iyo qawaaniinta waafaqsan shareecadda, sidaa darteed maxkamadda rifcaanka gobolka Nugaal waxay soo saartay xukunka. maxkamadda rifcaanka gobolka Nugaal iyadoo xukunkeeda ku salaynaysa shareecadda islaamka waxay xukuntay sidan: maxkamaddu waxay diiday rifcaankii ay soo qaateen rifcaanlayaasha kala ah cabdifitaax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed duge iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsame. maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal sumadiisu tahay MDK gacma 763 oo soo baxay 12 bishii shanaad 2019. waskin suuradda al-maa'ida aayadda 33, suuradda ashuura aayadda 40aad, suuradda al-israa aayadda 33aad, suuradda baqara 178 suuradda al-maa'ida 45. waskin kitaabka al-ifdaad bilfiqh al-mifham bilqaraa'in في الفقه الإسلام صفحة 58 إلى 108 وقرأ إبراهيم محمد الغائز وكتابك نظامك قضاء في شريعة الإسلام صفحة 58 وها كفرا على الشمع كمد السنة صدى الشبيرهود وها كسيحا بدوديها آدم محمد أحمد وبكر عبد الجامع سعيد حسن محمد محمد جامع فارح وبلا توفيق. maxkamaduna way noo xiran tahay. xukunkana waxaa qaybinaya kaaliyaha maxkamadda isagoo qof walba ka saxiixaya nabarka. waa mahadsanti.